halkan warar TV daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyay shir u dhaxeeyay madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabelle iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Faad Yaasiin ayaa dib uga biiray kulankaasi xog ku saabsan ayaan idin hayaa waxaad sidoo kale daawan doontaan dhinacyada oo go'aano isla qaatay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka lagu wargeliyay inuu sa joojin doorashooyinka isagoo horey u ballan qaaday in si walbaba doorashooyinka dalka ay uga dhigayaan kuwa ay tahay waajib qaran in la qabto warkeena ayaad ku daawan doontaan waxaa sidoo kale warkeena kamid ah dadaalo loo galay horumarinta doorashooyinka iyadoo dhinacyadu ay sii wadaan qorshooda ku aadan in doorashooyin xor iyo xalaal ah dalkan laga hirgeliyo qodobadaas oo faahfaahsan u diyaar garooba saaxiibayaal aynu ku bilownay magaalada Muqdisho caasimada wadanka waxaa lagu soo gabagabeeyay kulan weyn ka u dhaxeeyay xubnaha dawlad goboleedyada madaxda ka federaalka oo ay ku jiraan Laftagreen waa Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen hogaamiyaha Koonfur Galbeed kan Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo sidoo kale hogaamiyaha dawlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Gudlaawe waxaana kulankaasi ku weelinayay madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyadoo dib uga biiray ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble kulanka ayaa intuu socday waxaa looga wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka dardargelinta qorshaha lama huraanka waa doorashooyinka iyo sidii dhinacyadu ay horumar kaga gaari lahaayeen danaha horumarinta qaranka sidaas oo ay tahay dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay go'aan ku gaartay in si walbaba ay horumariso in dhinacyadu ay markaasi gaaraan qorshe isku mid ah taasina waxay ka dhigan tahay in dhinacyadu ay horumar kala gaaraan waxa sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya ay xaqiijisay in dadaalada socda ay kala fiican yihiin isla markaana horumar dhanka doorashooyinka dalka ay ka jiraan halka mucaaradku ay doonayaan in qas iyo dhibaato iyo dagaal ay ka kiciyaan gobolka waxaa intaas u dheeriyay inay socdaan dadaalo lagu xoojinayo dawladnimada Soomaaliya sidoo kale hanaankaasi waxay ka dhigan tahay qorshayaal dhowr ah oo dawladdu ay ku xoojinayso horumarka doorashooyinka sidoo kale in lagu gaaro dadaalo horumar u leh ka oo ka dhiganta in hanaanka dawladnimada Soomaaliya ay qayb ka tahay qorshayaal dhowr ah oo lagu xaqiijinayo ammaanka iyo dawladnimada wadankan ila wareediyo muhiim ah sidoo kale waxay xaqiijiyeen in horumarka dawladnimada Soomaaliya ay qayb ka tahay in dhinacyadu ay si buuxda u hogaamiyaan hanaanka doorashooyinka isla markaana ay ka hortagaan wax walba oo dhibaato loo arko waa in guul dhinacyadu ay gaaraan isla markaana ay ka wada shaqeeyaan qorshaha horumarinta qaranka xilli dalku uu doonayo inuu hagaajiyo hanaan doorasho waxayna taasi muhiim u tahay in guulaha la sii joogteeyo hogaamiyaha Koonfur Galbeed kan Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo sidoo kale maamulka ayaa waxay isku raacsan yihiin in hanaan doorasho oo dalkan loo dhan yahay laga wada fuliyo taasina waxay ka dhigan tahay qorshayaal horumarin u leh qarankaanta oo lagu hogaaminayo hanaanka doorashooyinka dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale waxa uu u haystaa in hanaanka doorashooyinka dalka oo si muuqata loo guda galo ay qayb ka noqon karto shaqooyin qarankan uu ku soo jiray sanadihii la soo dhaafay iyadoo la xoojinayo dadaalada lama huraanka waa qorshaha dawladda taa oo lagu xaqiijinayo nabadgelyada iyo horumarka dalkan ka jira xilli dalku uu kor u qaaday dadaaladiisa waxaana muuqanaysa in tallaabooyinkaasi ay yihiin kuwa dawladnimada iyo dalkan horumar u sameyn kara dhinacyada ayaa sidoo kale waxay rumaysan yihiin in ka shaqeynta danaha qaranka ay sidoo kale dalkani gaarsiin karaan goobo muhiim ah xilli dalku uu dadaal ugu jiro inuu xaqiijiyo horumar dawladnimo waana mid muhiim ah xaaladda gobolka iyo guud ahaan dalka waxaa sidoo kale la isku raacay in dhinacyadu ay sii hor joogteeyaan kulamadooda taasina waxay muhiim u tahay in horumarka dawladnimada laga qaato go'aan midaysan taa oo dhabaha u xaari karta in horumar la taaban karo laga gaaro dhinacyada horumarka iyo dawladnimada waana qayb ka mid ah qorshaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaamiyaasha maamulada taageersan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha ayaa sidoo kale waxay isku raaceen in qorshahaasi la dardargeliyo taasina dhabaha waxay u xaari kartaa guul la taaban karo oo guud ahaan wadanka ka hirgasha si Soomaaliya u hogaamiso qorshaha horumarinta qaranka iyadoo lagu gaarayo dadaalada horumarineed ee dalkani ka socda xilli jamhuuriyaddu ay rumaysan tahay in tallaabooyinka la qaaday ay muhiim u yihiin xaaladda horumarinta gobolka sidaas oo ay tahay guud ahaan dalka waxaa ka socda dadaalo hortabin u leh qaranka Soomaaliyeed taa oo lagu gaari karo shaqooyinka gobolka waana mid muhiim ah xaaladda dalka ila wareedyana waxa ay sheegayaan in dadaaladaasi ay u muuqdaan kuwa lagu dhisi karo dawladnimada kulankaas waxaa lagu lafaguray isla markaana la isku qaatay in doorashooyinka dalka ay noqdaan kuwa heshiis lagu wada yahay lagu wada qanacsan yahay dhinacyada mucaaradkana aan loo istaagin tabashada ay qabaan
Faad Yaasiin Xaaji Daahir oo kulanka ku biiray waxa uu sheegay in amniga qaranka ay tahay tallaabada ugu horeysa ee maamulkiisu uu diiradda saarayo. Wuxuu u soo jeediyay dhinacyada inay ka fakaraan habka ugu muhiimsan ee dhinacyadu ay ku gaari karaan qorshe isku mid ah, waana mid dhinacyadu ay ugu dadaalayaan sida ugu suurtagalsan si ayuu yiri loo gaaro horumar isku dhafanta oo doorashooyinka dalka iyo dhinacyaduba ay markaas ku dhamaystiri karaan shaqooyinka qaran ee loo baahan yahay in laga gaaro hanaan doorasho. Dalkan waxaa muhiim ah guulo siyaasadeed iyo dhinacyadu inay isfaham buuxa la yimaadaan, waana mid muhiim ah xaaladda gobolka iyo guud ahaan Soomaaliya. Dhinacyadu sidoo kale waxay isha ku hayaan tallaabooyinka socda, waana mid xoojin karta shaqooyinka qaran ee dalkan u baahan yahay. iyada ayaa isku afgartay in horumar laga sameeyo hanaankaas kaas oo dhabaa xaari kara guulo la taaban karo horumar dhanka doorashooyinka in dhinacyadu isfaham buuxa la yimaadaan. taasina dhabaa ay u xaari kartaa dadaaladii guud ahaan waddankaani ka socday, waxayna qayb muhiim ah ka qaadanaysaa dadaalada lagu dhisayo dowladnimada Soomaaliya. waxaana waajib ah dhinacyadu inay isla gartaan horumar doorasho oo loo dhan yahay. waa in la gaaraa qorshe isku xiran oo hanaanka doorashooyinka isfaham buuxa ayaa sidoo kale dhabaa u xaari kara guulo siyaasadeed oo dalkaani uu ku tilaabsado ayaa laga soo xigtay dhinacyada. isfaham buuxa ayaa ka jira qodobadaas, waana mid maanta soo dadejisay in horumar doorasho iyo guulo laga wada hadlo. waxaa sidoo kale dhinacyadu ay isha ku hayaan tallaabooyinka xiga ee la qaadi doono kuwa oo horumar u ah hanaanka doorashooyinka waddanka. dhinacyadu waxa ay sheegeen in horumaradaasi ay ku kala duwan yihiin, taasina qayb waxay ka tahay dadaalada horumarinta qaranka, qorshaha loo baahan yahay iyo istiraatiijiyad qaran oo dalkan uga degsan nabad iyo nolol. nabad iyo nolol ayaa waxaa loo arkaa inay tahay ciyaaryahanka ugu weyn ee dhanka siyaasadda, kuwa uu doonaya inay xaqiijiyaan guul dhanka doorashooyinka. sidoo kale waxay muujiyeen in shaqooyinkoodu ay lama taabtaan u yihiin barnaamijka horumarinta qaranka. ila wareedyo ayaa sidoo kale waxaa laga soo xigtay in dadaaladaasi ay dhabaha u xaari karaan guulo siyaasadeed iyo horumar dhanka doorashooyinka laga gaari karo. taasina waxay muhiim u tahay xaaladda waddankan. in la xaqiijiyo guulahaas waxay qayb ka tahay dadaaladii ugu dambeeyay ee dalkan guud ahaan ka socday, waxayna muhiim u tahay xaaladda in qorshe horumarin lala yimaado taa oo dhabaha u xaari karta dadaalada lama taabtaanka waa dowladnimada Soomaaliya. ila wareedyo muhiim ayaa sidoo kale waxaa laga soo xigtay in shaqooyinka dowladda ay qayb ka noqon karaan inaysan sanadkan fiirin mucaarad iyo muxaafid, balse la fiiriyo sidii kuraasta ugu badan nabad iyo nolol u soo saari lahayd. Faad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa wuxuu yahay ninka ugu weyn ee midaan waqtiga iyo maskaxda gelinaya sidii loo gaari lahaa hanaan doorasho lagu midaysan yahay, lagu wada qanacsan yahay, dhinacyaduna ay markaasi ku gaari lahaayeen hanaan dowladnimo oo loo dhan yahay. ila wareedyo muhiim ayaa sidoo kale waxaa laga soo xigtay in dowladnimada Soomaaliya ay u baahan tahay qorshayaal isku dhafan, taasina qayb ay ka noqon kartaa dadaalada socda. waxaana dalka ay markaasi ku kala duwan yihiin in lala yimaado qorshe horumarineed, sidoo kale lagu dadaalo ay u baahan tahay in la gaaro shaqooyin qaran. taasina waa mid muhiim ah xaaladda ka jirta waddankan. guulo kasta waxay amaah u yihiin shaqooyinka u baahan in la qabto. taasina waxay ka dhigan tahay dadaalada kala duwan ee dowladnimada Soomaaliya ay ku gaarayso horumarka la taaban karo, waxayna qayb ka tahay dadaaladii ugu dambeeyay ee guud ahaan dalkaani ka socday. waxaa sidoo kale dhinacyadu ay fahamsan yihiin in qorshe qaran oo lala yimaado ay muhiim u tahay xaaladda waddanka. waxay sidoo kale guul u tahay tallaabooyinka la qaaday, waxaana dhinacyadu ay fahamsan yihiin in shaqooyin laga qabto arrimaha dardarinta u leh qarankan si loogu guuleysto shaqooyinka laga maarmaanka waa dowladnimada, waana in la gaaraa dadaalo isku dhafan. sidaas ayaa laga soo xigtay dhinacyada kala duwan. waa qorshe muhiim ah oo dowladdu ay ku gaaraysay dadaalo isku dhafan, horumar dowladnimo, in la isla gartaa shaqooyinka muhiimka ah qayb ay ka ahayd tallaabooyinkii ilaa iyo hadda la qaaday. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale rumaysan in tallaabooyinka ay qaadayaan xisbigiisa nabad iyo nolol oo ay ku jiraan madaxda maamul goboleedyada ay tahay shaqo qaran oo ay waajib tahay dhinacyadu inay iskaashadaan si loo gaaro guulo dhanka doorashooyinka iyo horumarka qaranka. si la isaga kaashado shaqooyinka xilligan dalka u yaala waana mid muhiim ah xaaladda isku socodka dalkan sida laga soo xigtay dhinacyo badan, waxayna guul u tahay dadaaladii ugu dambeeyay ee dalkaani ka socda. si walbaba Soomaaliya waxay rumaysan tahay in shaqooyinkaas ay qayb ka noqon karto dadaalada socda, waana in guul laga gaaraa tallaabooyinka ilaa ay haatan la qaaday. sidaasi waxaa laga soo xigtay dhinacyada kala duwan oo ugu horeyso dowladda federaalka Soomaaliya. si walbaba dalkani wuxuu qayb ka yahay dadaaladii ugu dambeeyay ee lagu socodsiinayo qorshaha horumarinta qaranka, waxaana dhinacyadu ay sheegayaan in dadaalkaas uu dhabaha u xaari karo guulo siyaasadeed isfaham buuxa, waana mid u muhiim ah xaaladda dalka. si walbana dalkani wuxuu ku doonayaa inuu ku shaqeeyo guulo horumarin u leh qaranka Soomaaliyeed si loo gaaro
guulo muhiim u ah xaaladda waddankan waana in dhinacyadu ay isfahmaan islamarkaana laga wada shaqeeyo guulaha hortibinta ula qarankan si looga wada shaqeeyo danaha horumarineed ee qaranka loona gaaro dadaal isku xiran taasina waxay muhiim u tahay shaqooyinka ugu dambeeya ee la qabtay guud ahaan daawadayaal intaas waxaan ogaag warka warar TV tan intaa markala kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaa ay nabadgelyo.